السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga maanta waxaynu baran doonaa sidee ayaa kombiyuutarkaaga ugu shuban kartaa wordpress oo local hostiya adigo inagoo isticmaali doona sam iyo wordpress installation marka horeysa waxaad soo furan doontaa google-kaaga kadibna waxaad ku qori doontaa wordpress download linkigana hoos ayaan ku dhigi doonaa insha allahu tacaala kadib linkigan u horeeya kusoo baxaya calaamadda w saaran tahay tigtana saaran tahay saxda waa wordpresska saxda kan ayaad gujin doontaa markaa wax yar ayuu wareegsan doonaa kabacdina halkan wuxuu kugu saari doonaa laba installation kan waa markaad haysato domain iyo maaragtay hosting provider kanna waa marka aad rabto inaad install it yourself aad maaragtay si gaar ah aad computerkaaga ugu shubato marka waxaan taaban doonaa download halkan saad ujeeditaankii baa layidhi waa la dhameeyey installationkii wordpress waa iska xidhayaa kabacdina waxaan tegayaa kadib si aan sam la soo dego halkan waxaan ku qorayaa ham ama sam saa u taqaano kadibna download baan raacin doonaa download kadibna enter ayaan leeyahay wax yar ayaan sugayaa saad ujeeda halkan calaamadan dad aragto waa samkii saxda ahaa kabacdina waxaan samayn doonaa kan ayaan gujin doonaa download sam ama apache kabacdina kuwan o dhan markuu isoo saaro waxaan isticmaali doonaa php version 8.2 oo ah versionkii u dambeeyey halkan kabacdina kan ayaan taaban doonaa download aniga hore ay igu soo degsanaayeen saad ujeeda halkan wuxuu yihi awaysom oo uu leeyahay waan kuu dejin doonaa your dollar will start automatically haddii uu bilaaban waayana wax yar baad sugaysaa ilaa hal daqiiqo kadib halkan ayaa taaban doontaa hadduu bilaaban waayo waan eegaynaa inuu bilowday haddeer waa kan weli muu bilaaban laakiin daqiiqadaha sakinada soo socda ayuu bilaaban rabaa marka waxaan samaynayaa haddeer waan iska kansali doonaa anigu uma baahni hadduu installation bilaabo waayo horey baan ula soo degay wordpress iyo sam laakiin adiga ayaa kutusayaa qaabka aad ula soo degayso kabacdi waa kan wuu bilaabay box baan iska taabanaya waayo uma baahni wax installationa kabacdina waxaad tegaysaa un folderkaaga downloadka ee computerka halkan ayaad ka heli doontaa downloadkaagii oo dhammaystiran saad ujeeda halkan waa kan wordpress iyo sam laakiin aniga kuwan ma isticmaali doono waa iska dhilidaya adiga kuwan ayaa isticmaali doontaa laakiin aniga xaggan ayaan kula soo degay already mar horaan diyaarsaday wordpresska saad ujeeda waa kan samkiina waa kan kuwan haddaan isticmaalna waa helaa okay marka si aan installation ku bilaabo marka hore waxaan iska xidhayaa antiviruska computerka igu jira okay waayo inta badan samka wuxuu ku keenaa error buu ku keenaa haddii casper antivirus uu kugu jiro casperkaaga ayaad soo fura doontaa ama wixii kale antivirus ee kugu jira kabacdina waxaan ka dhigi doonaa off inta aan installationka wado waxay weydiin doonaa timeka haddaan doono waxaan odhan doonaa 30 daqiiqo kadib waa ii fasaxayaa okay okay uma baahni kuwan o dhan mail network attack iyo protection waxyaalahaas kale waa iska dhaafi karaa okay markaan antiviruska iska xidhay waxaan samayn doonaa inaan installationkii bilaabo kadibna waxaan tegayaa samkaygii ama ham windows 64 kan ayaan double click siinayaa wax yar ayaan iska sugayaa okay saad ujeedo samka ayaa noo soo furmaya okay okay next ayaan iska leeyahay kabacdina next kadib wuxuu ii sheegayaa meeshuu ii dhigayo local c kadib waxaan leeyahay next install wax yar ayaan sugaynaa intuu installationka inoo dhammaanayo haddii uu dheereeyana waan yaro jari doonaa videoga haddii hore u dhammeeyana waa okay okay apache server ma kuu daarnaa ayuu yidhi alow baa iska odhanaysaa okay installationka intuu inoo dhammaanayo waxaan unextract ku samayn doonaa wordpresskeena kadib waxaan odhanayaa extract all kadib waxaan extract here saad ujeedo extracting isku samaynayaa oo markuu sibka ku jiro waa inaad banaanka keento oo sibka aad ka saarto okay installationkeeni already haddeer wuu inoo dhammaaday waxaan samayn doonaa halkan waxaan ka odhan doonaa finish halkan tig baa saaran saad ujeedo waa control panelkii sam miyaan kusoo kiciyaa finish ayaan iska odhanayaa marka okay wax yar ayaan sugayaa kadibna waxaan daarayaa apacheheena ayaan odhanayaa start
sidoo kale waxaan inoo daarayaa MySQL. hadduu error yar kugu soo celiyo waa inta badan waa networka ee errorka keena, marka waan xalin doonaa. inta badan blocked portiska waxyaalaha sameeya waa antiviruseska iyo waxyaalaha errorska ku keena inta badan SAMka. marka haddeer wuxuu isku dayayaa inuu detecting ku sameeyo ama uu soo helo portiska MySQL oo 3306 uu rabo inuu ka galo. okay saad ujeeda halkan wordpress-keeni ayaa isaguna inoo diyaara. kabacdi waxaan samayn doonaa SAMkeeni oo isaguna inoo salaxan oo inoo diyaara ayaa waxaan tegi doonaa adminkiisa. wax yar ayaan sugaynaa. maasha allah, saad ujeedo si qurux badan ayuu nagu soo kacay. kadibna halkan waxaan ku abuuran doonaa database-keena. new baan leenahay. kadib waxaa layna weydiin doonaa database namekeena. waxaan gelin doonaa wordpress. weliba waxaa fiican sida uu ugu qoran yahay wordpresski aad la soo degtay haddeer ee aad ku samaysay extractingka inaad sidiisoo kale aad u diyaarsato. kadib kan waxaa leeyahay rename anigoo magaca ka koobiyeysan doona. kadibna waxaan tegi doonaa halkii aan database-kayga ka abuuranayay waan ku baasti garaynayaa. okay hal mar ayaan odhanayaa wordpress ama saas fartaa yarar ayaan qorayaa sida uu marba qoraalkaaga iyo waxaaga isugu beegnaadaan. kabacdina waxaan ku samayn doonaa creation. database-keeni waa la abuuray haddeer waa tan u hooseysa maasha allah, waa inoo diyaar. sidoo kale SAMkeeni waa inoo diyaarsan yahay. kabacdi waxaan samayn doonaa inaan qaadno folderka ee wordpress-keena uu ku jiro si uu local hostigeena ula shaqeeyo. copy ayaan leeyahay. kadibna local disk C ayaan tegayaa computerkeena. kabacdina waxaan tegi doonaa SAM. halkan waad ujeedaa inta badan intaadan program fileska meelaha sii dhex gelin banaanku iska yaalaa. kabacdina waxaan sii tegi doonaa SAMkeena inagoo raadin doona folderka ht documents. okay waa kan ht documents ama ht doc. kabacdina waxaan samaynayaa halkan waxaan ku odhanayaa control v. copy ayaan soo taabtay. saad ujeedaan wordpress folderkeeni dhammaantii halkan uu iman doonaa. waan kusoo ama kad badan ama copy ama wixii kale markaa aad qorshaysan kartaa ama drag and drop ayaad kusoo samayn kartaa. kabacdi halkan ayuu dhammaantiin ugu soo install garoobaya. okay wuu inoo dhameeyey hadda copy pasting wuu inoo dhameeyey dhammaan folderkeeni. saad ujeedo wordpress waxay u qorantay sidii database-keeni ugu qoran tahay si uu isla jaan qaado oo marka local hostiga aynu kasoo galo uu si caadiya noogu soo qabto. okay haddaba halkan waxaan ka tegaynaa browserkeeni. kadibna halkan waxaan ka raadin doonaa local hosti. kadibna halkan waxaan raacin doonaa intii inoogu qornayd waad garanaysaa say kuugu qornayd wordpress slashtaa kama tegaysid. kadibna waxaan raacinaynaa wordpress. okay saad ujeedo wordpress local host wordpress keliya ayaan qornay. dhammaan sadabkeeni oo dhammaystiran ayuu soo saaray. luuqadda waxaa inoo dooran English United States. marka waxaan isleeyahay waa suitable, waa tii ugu habboonayd. kabacdina waxaan odhan doonaa continue. kadib halkan waxaa inoo sheegayaa database name iyo database username in laynaga rabo, sidoo kale database password iyo database host in laynaga rabo. marka waxaan leenahay let's go. okay halkan saad ujeedo waxaa inoo soo baxay database namekeeni oo la rabo inaynu gelino wixii aynu kusoo qoranay. kadibna intaa ku qoran hideka baan gelin doonaa. waxaan gelin doonaa wordpress oo far yar yara. haddii aan doonana taydii iigu jirtay copyga ayaan waxaan ku odhanayaa paste. wordpress username waxaa laga rabaa database username.
database username waxaan ka dhiganaynaa root passwordka balaanki baynu isaga deynaynaa local host database hostingka waxaynu ka dhigi doonaa local host maadaama markii hore waa local host inoogu qoray okay kadibna wb slash tire sideedaynu deynaynaa table prefix baa la dhahayo waa horgalaha tableska submit ayaan odhanaynaa okay cannot select the database server could not connect which means your username was okay but the database could not be selected are you sure okay saad u jeeda haddeer waxaa laynagu haystaa database-keeni inaysan selecti garaysnayn marka waxaan samayn doonaa waxaan raadin doonaa errorka on subsystem name database prefix username okay kadib waxaan raadin doonaa database namekeeni ayaan xagga kasoo eegan doonaa okay copy ayaan leeyahay kadibna halkan ayaan ku paste garayn doonaa root waa username passwordka sidiisa isaga daa halkan waa local host okay kadibna submit okay alright it's back you are made it through part of the installation but WordPress can now communicate with your database if you are ready the time to now run the installation baa leedahay kadibna installationkii baa lainoo bilaabaya WordPresska ee local hostigeena okay saad u jeeda halkan waxaa hadda lainoo soo saaray site namekeena usernameka aynu ku geli doono iyo xogtii websitekeena oo dhammaystiran waaye site namekeena waxaynu ka dhiganaynaa daha okay usernameka waxaynu ka dhiganaynaa daha kaba dhigsadan daha oo isku mid aba site name iyo username passwordkii baa kuu soo haray passwordkan waa strongi password yaroo weeka ayaad kaga xidhan kartaa tusaale waxaad oran kartaa daha 1234 okay usernamekeenna muxuu ahaa daha passwordkeenna waa daha 1234 marka haddaad hadda aad online ka dhigto waxay ka dhigan tahay usernameka iyo passwordkan qof kastoo hela domainkaaga ama hostingkaaga toos ayuu soo dhex geli karaa isagoo websitekaaga wuxuu raba ka samaysan karaa marka intan waa muhiim inaad wax xoga ka dhigato very week baa lagu leeyahay hadda marka innaga hadda waa practical baynu ku qaadananaa laakiin marka hadhow qof website u samaynayso ama aad WordPress website samaysanayso waa must inaad password fiican oo symbols iyo xarfo waaweyn iyo xarfo yaryar iyo underscores iyo hyperlinks iyo periods aad ku darto taas waxay ka caawinaysaa in websitekaagu noqdo website aan la jebin karin oo maaragtay passwordkiisa aan ciyaar lagu heli karin laakiin waxaan wax lagu raadin karo laguna baari karo okay confirm use of week of password man baa tig saaraya anigoo le waa iska caadi passwordkan weeka aniga ayaa ku raba halkan emailkaaga ayaad gelin doontaa your email double check your email address before continue buu kuleeyahay marka halkan hadda waxaan gelin doonaa email iska maaragtay aan ugu talagalay tijaabo kaas ayaan adeegsan doonaa insha allahu tacaala adeeg haye at gmail.com ayaan gelin doonaa okay waxyaalahan kale uma baahni waxaan odhanayaa install WordPress labadana waa inaa xasuusnaato daha oo da'da hore weyn tahay iyo daha 1234 intaa waa inaa xasuusnaato waayo waa username iyo passwordka labada haddaasan haysan websitekaaga ma geli kartid hadhow kan waa iska name oo daha university waxaa kasii raacin kartaa isaga dhib ma laha university okay haddaad doontana waxaad u bixin kartaa wixii kale aad markaa websitekaaga doonayso kolley websiteka waxaan ka dhigi doonaa e-commerce website laakiin haddeer magacan ayaan ku geli doonaa magacana markaad doonta ayaad bedelan kartaa wax rabtaa ayaad ka dhigi kartaa okay install WordPress ayaan taabanaya wax yar ayaan sugaynaa wax internet uma baahna usernamekii iyo passwordkii ayuu inoo sheegaya kadibna waxaan leenahay login haddeer waxaa inoo sheegaya dhammaan waxayna inaan si saxa u dhamaysanay kadibna waxaan leenahay login okay username iyo password waa taqaanay xaggan maxaan gelinayaa daha halkan maxaan gelinayaa daha waliba inaan hadhow ku tusaan rajeynayaa daha okay daha markaan geliyo 1 2 3 4 kadibna isha yar baa furayaa passwordkaygi may haa remember me baan ku xidhanaya haddaan maaragtay aad ka baqdo inaad passwordkaaga ilowdo kadibna waxaan leeyahay login wax yar ayaan sugaynaa maasha allah websitekeennii dashboardkiisii ayaynu dhex taaganahay saad ujeedo halkan ayaynu ku wada shaqaysan doonaa environmentiga aynu ku shaqayn doono in muddo aynu isku arki doonaa waa halkan
marka qof kastoo halkan guul kusoo gaadhay aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa waxaan u sheegaya inuu dadaalkiisa sii laba jibaaro kadibna waxaan eegi doonaa websitekeena muxuu ahaa magaciisii Daha University kadibna Daha University waa tegaya kadibna halka yara hoose waxaa ii soo baxaysaa visit site oo ila leeyahay war bal websitekaagii booqo aad soo abuuratay kadibna waxaan ku dhufanayaa visit site wax yar ayaan sugayaa maasha allah community innovation and sustainability okay waan iska dhaafayaa waa sample page waxaan waxaa lagugu talagalay inaad adigu bedelato halka inaad sawirkaaga soo dhigato ama sawirka jaamacadaada ama maaragtay e-commercegaaga about us waa button waxaa loogu talagalay inaad soo gashato pageka about us-ka loo yaqaano ee xogtaada sheegaya okay dhammaan websiteki hadda waa inoo salaxayn waa inoo diyaarsan yahay waana websiteka aad aragtid waxaa lagaa rabaa customization iyo inaad wax bedbedesho marka iyadana insha allahu tacaala mid ayaynu u baran doonaa mid ayaynu arki doonaa okay waxaan ka soconayaa kadibna waxaan ku laabanayaa edit site ama dashboard Daha University dashboard baan ku dhufanayaa marka themeska iyo pluginska iyo waxyaalo badan baynu halkan ku baran doonaa customization badan baynu ku baran doonaa halkan waa meesha wax kasta laga maamulo haddii aan kuu dul maro pagekan iyo waxyaalaha uu qabanayo waxaa ka mid ah post maxay tahay post waa markastoo doonayso inaad websitekaaga post kusoo darto tusaale haddaad rabto inaad all post aragto taas ayaa taabanaysaa haddii aad rabto inaad new post qorto iminka waxaad aragtaa post qurux badan oo taalo website see loo sameeyaa postiska okay hadda tusaale post yaro degdeg aynu samaysanaynaa sideenu samaysanaynaa halka aynu ku qoraynaa wararka maanta ee maamulka SSC Khaatumo okay intan ayaan ku qoraynaa kadib wax kasta ayaan ka bedeli karnaa waynu salixi karnaa waxbaynu kusoo dari karnaa badhankan balaaska halkan lagu dhigay waxaa loogu talagalay inaad wax kaga soo darsato oo maxaan ku darayaa waxaan kusoo darayaa paragraph baan ku dari karaa image baan ku dari karaa gallery baan soo dhigi karaa list baan soo dhigi karaa quotation baan soo dhigi karaa heading baan soo dhigi karaa kadibna waxaan oranayaa heading igu soo dar kadibna waxaan leeyahay madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo oo booqasho ku tegay marka intan link ayaan ka dhigi karnaa waxaan raacin karnaa sawir wax kasta ayaan raacin karnaa kadibna waan hoos baan uga digayaa kadibna waxaan raacinayaa paragraph waan sii faahfaahinaya marka paragraphka maxaa laga rabaa waxaan leeyahay kadibna paragraphka inta doonto la kisi karaysaa intaas ku gaabsanayaa si aan waqtiga u ilaaliyo kadibna waxaan kusoo darayaa sawirkaan doonaan kusoo dari karayaa add image waa kan image ayaan taabanayaa kadibna waxaa leeyahay ma media library kugu jira mise upload baa oranaysayo computerkaaga kasoo dhex qaadanaysaa haddaad markaa computerkaaga kasoo dhex qaadanayso halkaa ayaad markiiba ka tegeysaa kadibna downloadkaaga ayaad tegeysaa meesha sawirada kugu jiraan qof walba isaga yaqaana ani hadda waxaan tegayaa address kadibna waxaan tegayaa all flags kadibna halkan ayaan kasoo qaadanayaa sawirka aan markaa danaynayo okay kan ayaan doona soo qaadanayaa kadibna saa ujeedo sawirkayga halkan ii soo galay postigayga hadda already wuu dhamaystiran yahay waxaan ku sameynayaa wax yar baan kaa tusiya iyadana publish haddaan rabo already website-ku gelaya horey buu hawada ka gelaya linkiga laga gelayo iyo maaragtay url-kiisi waa kan move to trash haddaan rabo inaan dhilido haddaan category ku darayo oo category-yo aad ku artay website-ada tag haddaan ku darayo oo aan tag israacinayo madaxweynaha ama SSC ama wixii lagu raadin lahaa feature image haddaan ku darayo oo image-yada yara korka ama hoosta kasoo muuqda discussion oo ah waxyaalaha maaragtay lagu discuss garaya okay publish ayaan taabanaya kadibna waxaan onayaa waa diyaar feasibility-giisu waa publish immediately waa markiiba sii daa feasibility-guna public waxaan ka dhigi karaa private ama dad gaar aan tusi karaa suggestions waxyaalaha loo soo jeedin waxaa ka mid ah add tag oo si sawirkii loogu soo daro waxaasoo dhan maaragtay tags markii la qoro madaxweynaha oo kale si uu postiga meel sare usoo galo suggestions waa assign a category waa ku dar liiska wararka maanta oo saas oo kale okay publish baan taabanayaa wax yar ayaan sugayaa
saad u jeedo boostigeeni isagoo dhammaystiran ayuu soo galay hawada wararka maanta maamulka SSC Khaatumo website sidan oo kale waad aragtaan mar hore baad aragtay kadibna waqtigii bay daaha anka Grace ku tilmaamaya madaxweynaha maamulka Khaatumo oo booqasho ku tagay magaalada Bohol iyo sababtii uu tagay iyo maartay sawirkiisii ama wixii kale halkan aad soo gashanisay okay kadibna waxaan ku laabanaynaa qaybteeni dashboardka ilaa halkan ayaan wax ka salaxaynaa kadibna waxaan kusoo dari karaa media waa waynu aragnay waa sawirkii waxaan kusoo dari karaa pages oo all pages haddaan hadda dhaho about us baa inoo samaysnaa haddeer okay privacy policy iyo sample page baa inoo samaysan waxaan kusoo darsan karaa page kale add new page baan leeyahay kadibna waxaan kusoo darsanayaa about us okay waxyar baan sugayaa pagekan waxaan ka dhigayaa titlekiisa waxyaalahan patternskan iyo maaragtay waa choose patternskan waa sida uu pageku uga soo dhex muuqanayo tusaale haddaad doonto kena iska dooro okay waa kan hadda pagekii iyo nidaamkiisi waa kan pageka waxaan ka dhigayaa art title daha university waan ka dhigayaa university okay kadibna waxaan ku sameynayaa publish kadibna publish baan leeyahay pagekan wuxuu ka mid yahay hadda websitekeena view page aan waxaa ku dhufanayaa halkan waan kaga dhufan karaa view page haddaan add new idhahana mid cusub baan kusoo daraya marka hadda waa kan daha university inoo diyaarsan page daha university la dhaho oo websitekeena ka mid ah asagiina kaas ah okay maxaa inoo hadhay dashboardkan ku laabanayaa sorry xabiib baa jirta pageska waynu aragnay commentska iyadu waa faalooyinkii waxay kusoo qoriyeen appearancega teamka isagana waan kusoo darsan doonaa pluginska waynu kusoo darsan doonaa oo waxyaalaha wax qurxiya userska waa dadka kula isticmaalaya website-kaaga marka website online yahay users badan baa loo sameeyaa marka userska hadda daaha ayaa ku jira user kale ayaan kusoo darsan karaa oo adminkii kusoo geli karaa rolekiisa waa administrator tusaale haddaan rabo inaan user kale kusoo darsado waxaan leeyahay add new user kabacdina waxaan halkan aan u sameynaya usernameka waxaan leeyahay admin inta badan website-yada admin baa lagu soo galaa emailka waxaan ka dhigayaa info@hayemarket.com marka emailkan hadda forgado kale hadda tahay waa emailkii lagugu diri lahaa confirmationka qofkan waxaa la dhahaa awil last namekiisu waa yusuf kadibna waxaan website-ka ama waxa uu qabanayo waxaasoo kale generate passwordkan waan ka taatiraya waxaan ka dhigayaa admin sidoo kale 1234 okay very weak buu kuleeyahay waa lagu baarbaari karaa confirm waan garanayaa leeyahay password ku jilicsan yahay send new user an email about their account kan markaa website markuu online yahay ama maaragtay live yahay oo hosting iyo domain leeyahay si toos ah loogu dirayaa email leeyahay website-kaasaa lagu daray account-ka okay kabacdina halkan waxaan ka dhigayaa subscriber waa qof maaragtay taageero una contributor waa qof tabarucaada oo marba website-ka wax yar ka khaldan iyo waxaa soo sheega author waa qof qoraaya oo sidii hadda oo kale wararka madaxweynaha qora editor waa qof maaragtay wararka qurxiya oo wax ka bedela marka qofka role-ka aad siiso iyo awooddiisa waxay ku xidhan tahay maamulka uu website-kaaga u yeelanayo qof baa wuxuu samayn karaa inuu keliya author ah yahayo posting baa loo ogolaya add new post add new page add new article waxa uu ku dari karaa editor waa qof waxa bedeli karo halka farta ka bedel halka page-ka xagaagee daaha magaceeda xagan mari waxaas u qabtaa administratorna waa ninka meesha ugu sareeya waa admin waa ninka meesha maamulayay marka inta badan adminka qof walba lama siiyo haddii qof walba adminka siiso dee website-kii qofku wuxuu doono iska soo dhigaya marka waxaa la rabaa adminka inaad ka dhigto qof ku kalsoon tahay dadka kalena aad roolalka kala siiso aad tahay website kale ka soo maamula okay add new user baan leeyahay wax yar ayuu wareegsanaya kadibna waxaan kusoo geli doonaa hadda waad ujeedaa admin ayaan kusoo geli doonaa website-keena ayaan ka bixi doonaa kadib xalay log out sidii caadiga ahayd waxay la sugaya website-keena dhow waa ka baxaya website-ka waan ka baxay hadda wax maaragtay credential iguma qorna kadib waxaan ku qorayaa admin bal haddaan admin 1 baan ka dhigayaa waan khaldayaa kadibna password sax waxaan gelinayaa admin 1 2 3 4 waad ujeedaa intaasaan geliyay kadib halkan waan khalday 1 baan raaciyay maxaa dhacaya login okay userka ma jira leeyahay madaxu ruxaya userka ma jiro admin ayaan gelinayaa halkan waxaan gelinayaa admin kadibna waxaan raacinayaa 1 2 3 4 okay remember now leeyahay niyo xasuusnow okay intaan aan geliyay login ayaan leeyahay maxaa dhacaya waxaan sugaya book waa kan website-ka soo dhex gala marka qof kasta oo aad admin siiso ama aad role kala siiso website-ka wuu soo geli karaa marka haddaan hadda aan user kala siiyo isagana shaqada uu qaban karo oo kaliya ayuu ka qaban karaa marka toolskan iyagana mid ayaynu u baran doonaa available toolska waxaa ka mid ah waynu arki doonaa